gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sela sidoo kalena xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Sela xildhibaan Axmed Maxamed Barkhalda ayaa waxa uu ka hadlay colaad beelo walaalaha ku dhexmartay gobolka Sela taasoo gacanta lagu hayo xalinteedii xildhibaanka ayaa telefishinka bulshada oo waraysi gaar ah ku siinayay magaalada Hargeysa waxa uu si qoto dheer uga warramay habka ay colaadaas u bilaamatay iyo waliba hadda oo gacanta lagu hayo luqmaano haddii aan xaaladda gobolkaaga sheekeeyo horta gobolkii barwaaqo ahaa waa rooban yahay alxamdulilah ilaahay baa aad aan uga mahad celinaynaa u barwaaqaysnaa ta guud ahaaneed hadda aan kaaga warramana gobolka uu nabdoonaa imika ahaan shaqaaqayroo dhowo meel dhowo ka dhacday degmada Saylac wadajir meel la yidhaaho oo laba reeroo walaalaha oo isdhalay oo isku abtiya oo isku isira oo isla deganoon meelba kala tegayn shaqaaqayro ka dhex dhacdaa jira taasina waxaan rajaynaynaa inteedii badneed waa la xaliyey waqti dhow inay xalisataan rajaynaynaa insha allah intaa yar baa ka jirtay sida kale waa nabdoonaa waana barwaaqaysnaa saabo gobolka xaaladiisu ay ahayd deegaan bal arrinta la xaliyey ee deegaankaas maxaa gundig u ahaa khilaafka labada beelood horta khilaafku wuxuu ka yimiday beer buu ka yimiday qolana beer baan halkan ka dhigaynaa lahayd kuwa kalena waa dhul daaqsimeed bay lahayd meeshuu ka yimiday iyo horey beer u ahaan jirtay iyo beer ma ahayne waa dhul daaqsimeed baa la isku hayahayd laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inay hawshaasi soo afjarantaan rajaynayna hadduu alla idhaho gudoomiye iyo xildhibaan sidoo kale labada beelood heshiiska la gaarsiiyey ma ku qanacsan mise kuma qanacsan kolley way ku qasban yihiin horta waa labaduba waa laba reeroodoo gundhigooga ama saldhigoogu inta badan u yahay dhaqan haddii layshor tago layshor fadhiisana kolley listiidi maayaan filaya hadduu alla idhaho sidoo kale waxaa jirta arrinta saamin qaybsiga ee xukuumadda ee beeshaada cabasha ka jirta bal arrintaasi gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka tahay wax ma ka qabatay horta labaan u kala saaraynaa saamin qaybsi marka la idhaaho midna waa heer qaran oo xaggan wasiiradii iyo xukuumadda wuxuu madaxweynuhu magacaabo midna waa tii baarlamaanka kolley taa baarlamaanka waxaan u dayn odayaasha iyo waxaan u dayn doonaa siyaasiyiinta kale laakiin tan xukuumadda muuse biixi cabdi ama xisbiga kulmiye waxay la qabtaa beesha kolley way jirtaa cabasho laakiin waxay la qabtaa beelaha kale unbay la qabtaa oo beelaha kaleo dhan way cabanayaan beel aan cabanayn ma jirto tu waxayse iyo tu aan waxaynba way cabanayaan markaad ka timaado kuwa kale gaar ahaan gobolka hal wasiir buu leeyahay magacaabitaan ahaan waxaa jira komishanno laakiin komishanadu dee wax tirsan maaha booska siyaasadda waa wasiirkaas waxaan rajaynaynaa kolley muusena hore uu sheego madaxweynaha qaranku la soo caban maayo yidhi kolley waan biirinayaa buu lahaa waanan rajaynaynaa wuxuu ku dari doono wixiisa dambe imanaya kolley waxaa lagu yaqaanaa dadka deegaanka dad degdega maaha dad had iyo jeer miidiyaha ka hadla maaha waa dad cabashadooda markay qofkii ay ka cabanayeen ama ay u cabanayeen ay arkaan u gudbiyaan kolley muusey sugayaan intuu tegayo waa lagu caban doonaa cabasho ka hor baan sugaynaa insha allah inay wax badan isbedelaan hadduu la idhaho laakiin adigu gudoomiye xisbiga kulmiye gobolka tahay marna madaxweynaha ama gudoomiyaha xisbiga maxaad keen arrinta maska aragtay kolley dhowr goorba waa la is arkay odayaal baa is arkeen odayaasha ani laftaydu qayb baan ka ahaa waan la socdo waan hogaaminayay qayb baan ka ahaa dhowr goor madaxweynuhu buurama tegey madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu cabasho dambe inayna jiray inuu hagaajinayo waanan ka sugaynaa u hagaajinta insha allah hadduu la idhaho ugu dambeyntii golihiina deegaanka waxaad ku jirtaan golayaasha deegaanka dalka 7 sano dooranaa ee waqtigoodu iska gabagabada yahay maxaa ugu weyn aad ku faanin karaysaan muddada qabatay horta waxyaabo badan baan qabanay marka la idhaaho dhaliila ay jiraan oo ana la dhaliilo laakiin markaad golaha deegaanka eegato aad tidhaaho degmooyinka ugu waxqabadka fiican lanahay ayay ka tirsan tahay degmada Saylac hadday caafimaad tahay waxyaabo badan baan ka qabanoo ku faanaynaa maanta hadday waxbarasho tahay waxyaabo badan baan ka qabanoo aan ku faanaynaa maanta hadday biyo tahay waxyaabo badan baan ka qabanoo aan ku faanaynaa maanta marka adeegyada aasaasiga oo dhan wax badan baan ka qabanoo maanta ku faanaynaa luqmaanow kolley waxaa fiicnaan lahayd adigoo gobolkii booqda waxyaabaha dawladda hoose dhaqdhaqaaqa ugu badan ee gobolka ka jira ee waxqabadba dawladdii hoose Saylac ba qabatay degmo ahaan marka la yidhaha degmadeeda Saylac wax ka yimaada inta badan way yar tahay ama dawladda sare ama meel kale nooga yimaada laakiin waxaa u badan waa waxay dawladda hoose baahiyaha aasaasiga ku sheegay oo dhanba waxa qabata waa dawladda hoose luqmaan maxamed farax bulsho TV Hargeysa